بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا adinko mahadsan ilaa mahadle anagoo nabad qabno caafimaad qabno madashan quruxda badan inuu kulmiye sidoo kale ustaadku xaaleeyaa soo dhaw caawa waxa qabsaneynaa barnaamij isu agaasimeen social science forum sidoo kale ay qayb ka qaateen baraarug library social science forum sida ku taqaaniinba waa forum arrimaha quseeyo bulshada falanqeeya barnaamijyo bulshada lagu baraarujinayo mowduucyo door soo qaato oo kulamo sidaan oo kale ka mid tahay la qabto hadda waxa inoo socdo mashruuceeni aan ku qaada dhigayna aqoon-yahanadaas oo cilmiga social science-ka door ka qaatay wax ka darsa bulshada hadda waa kulankeeni afraad 3 kulan hor u baxday oo ugu horeeyay Edward Said sidoo kale Max Weber sidoo kale Karl Marx waxa qaadanayna oo dhextaal noo Somali Studies oo daraasad lagu sameeyay Soomaalida journalist-ka laga qoray qoraaladii laga sameeyay hada Soomaalina anaga u baahanaas barano oo waxaan rabnaa inaan isdiraasayno oo ogaan cidaanahay marka caawa waxa si guud dulmar noogu sameyn doona ustaadkeena qaaliga journalist-ka laga qoray sidoo kale to badanaa dadka sameeyay cilmi baarisada social science field ee ka soo wada baxeen ustaadkan sidoo kale waxbarashadiisa baajka waxay ahayd social science masterkiisana waxa ahaa African Studies and IA oo ku soo bartay Istanbul Turkey experience-giisa daa wax ka qeexo ustaadku wuxuu agaasimo guud ka yahay baraarug library oo qayb ka ah barnaamijka sidoo kale wuxuu agaasimo ku xigeen ku yahay macahadka aan ku qabsanayna barnaamijka hibad maxaa la soo dhawaada ku soo dhawaa ustaadka wuxuu haystaa 40 daqiiqo oo noo soo jeedinayo mowduuceena insha Allah adinkana waxa leediin 10 daqiiqo oo qof walba adii ilaa 2 ilaa 3 qofood ay su'aalo ku weydiinayaan iyo wixii falanqeena soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantiin aqyaar soo dhawaada aniga Xasan Mudan ali dhaha maktabada baraaruga waxaan ka ahay agaasimo guud macallin jaamacadeedna waa ahay marka jaamacadaha waxaan ka dhigaa maadada African Studies ama daraasadda Africa had Somali Studies waaye laakiin as a general African Studies ama African politics waxay dhahayaan waan dhigaa iyo diblomaasiyadda ama xiriirka caalamiga marka mowduucan wuu iga weyn yahay wuu iga ballaaran yahay waxa wuxuu ku saabsan yahay Soomaalida oo dhan oo la daraaseenayo dhinac walba laga fiirinayo hab nololeedkeeda taariikhi ama historical background Soomaalida meesha ka timid isirkeeda ama ha noqoto in la fiirinayo laga hadlayo linguistically maana luqad ahaan Soomaalida meesha ay galayso geographically dhul ahaan Soomaalida meesha ay taalla isay ku timid meesha ay degan tahay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan intaas la fiirina marka la rabo Somali Studies marka la daraasayna marka qof hadda anigoo kale oo background-gayga yahay African Studies and International Relations waxaan ka fahmi karaa laakiin at least Somali Studies waxa oo si dhab ah u fahmi kara qof macnaha background-giisu yahay anthropology-gana gali kara taariikhyahanna ah ama hadii kale si kala daan u dhaho saddex meelba cilmi baaris ka keeni kara midalan inta ugu badan Soomaalida wax laga qoray af Ingiriisi ku qoran yihiin marka qof af Ingiriisiga aad u fahansan oo yaani xilligii gumeystaha uu joogay data badan oo naga ururiyay ama colonial record waxay dhahayaan qof intuu ka daba tago madaxafyada ay leeyihiin meelaha xogta ay ku keysan yihiin intuu tago library-da maktabadaha soo aqriya tarjumo luqadan si fiican u fahansan qof afka Talyaaniga ku hadli kara because Talyaani intuu joogay xog badan oo ka haayo ka ururiyay af Talyaaniga si fiican u yaqaana Talyaaniga taga madaxafyada Talyaaniga booqda waxa meesha ku qoran fahmi kara even Talyaani kaliya even Carabta laftigooda dad badan oo Caraba oo muslimiina saa la socotaan oo magacyada oo garanaysiin oo sahmiyaal ahaayeen laftigooda way darseen Soomaalidan wax badan ay ka qoreen marka ayaka laftigooda qof af Carabiga aad u yaqaan oo aad u fahansan oo dhanka Carabta intuu tago xog badan ka soo heli kara
carabta kalimaan even xitaa Portugiiska Germanyga even Ingiriiska iyo ii sheeg taariikhdii markaa fiiriso xog ururinta gumeysiga Ingiriiska Talyaaniga waxa uga soo horeeyay Germanyga iyo Portugiiska marka qof Portugiiskana yaqaan Germanyga yaqaan aad loo ma sheego German literature ama waxay Germanka naga qoreen laakiin dad sax miyaa laha oo asalkooda German aha oo xog naga haya jira marka ay kan in la raadiyo oo heli kara marka hadda qof anoo kala oo af Ingiriisiga qaracsanaya af Carabina warkiisa daa Talyaaniga iyo Portugiis iyo Spanish iyo Carabina iska daa marka qof ka iman kara luqad ahaan meelahaas ka iman kara Somali Studies-ka si sax wax idinku sheegi kara laakiin anaga waxaan sameeynaa marka horeba mawduuciga afeefan ka dhigtay inay fahmeysaan in kalma aqaano a very short introduction macnaha waxaan ka wadaa waa idin taabanaa leebis gudaha ma galaan marka meelaha mawduucyada aan rabo inaan si oo macnaha oo quickly inaan u dulmaro waxay tahay waa kuwan midalan Somali Studies-ka maxay tahay aan ka bilaawno basic inaan iswareysano taariikhdeeda Soomaalida darsideeda ama waxa laga qoray Soomaalida taariikh ahaan intii dib ugu laabanaysa intii aadaysa dood badan ka taag waa isku haystaa qolo walba waxay rabtaa in ayada ay siiso midalan marka fiiriso dadkii Soomaali wax ka qoray oo ajnabi Soomaali iskugu jira iyo muslimiin iyo gaalada waxaan kala fiirinaynaa inaan barano dadka oo liira Somali scholars ama Soomaalida wax ka qora Soomaalina ha hadaan ajnabi ha hadaan labadaba dadka ugu caansan ee magaca leh oo adinka laftigeena la rabo inaad si raadisaan macnaha inaad si baartaan journalada midalan adinka hadda intiina badan arday u badana intiina badan background-iga meeshan ka imaanayno jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada ka imaanayna iyo goobaha cilmi baarista marka mustaqbalka waxaan u baahanahay inaan wax qorno kadibna si aan doodaha ka dhex socda darsidda Soomaalida inaan wax ku biirano marka marar qaar waxaan u baahantahay inaan fahanto journalada aad u daneeya Soomaalida aad u daneeya doodahooda iyo qoraalada sameeya ayakan waa isla arki doonaa waa fiirinaynaa journalada ugu fiican lacala hadaa rabta inaad wax qortaan cilbaaris sameysaan aad ku daawici karteen cilbaaristeena waxaan kaloo fiirin doonaa wax la dhaho foundations for Somali Studies macnaha waa basic arguments ama doodaha asaasiga ah ee Soomaalida laga qabo waa arki doonaa qolo walba dhinac ka fiirinaysa yani hadda midalan ana hadda okiyalkan awta waxa laga yaabaa marka adinka idin fiirinayo in color iyo midabo kale because maadaama color guduud uu yahay wax kale ay muuqanayaan yani Yusuf Xasan asaga okiyal kale wata waxa laga yaabaa inuu si kale u arkayo marka wax la yiraahdo paradigm ama lenseska ama theorieska aragtida lagu fiirinayo Soomaalida meesha ay ka timid iyo taariikhiyan way kala duwan marka qolo walba paradigm gaar ah wadataa marka ayadana waa isla fiirinaynaa mid walbaba aasaskeeda waxay u taagantahay doodaha marka jira adiga laftigeena doodaha socdana wax ku darsataan at least meelaha la geli karo aniga laftiga intaan akhrinayay mawduucan qoraalada aan akhrinayay waxa iga soo baxay some research yani gap ama research questions u baahan in aniga laftiga aan sii baaro marka rabin aan PhD siismaan macnaha marar qaar muhiim ah marka arkaysid meela oo qof macnaha scholar oo ku dhahayo dhinacan aad wax looguma qorin waxa loo baahan yahay dhalinyarada ama generationka imaanaya ee odayaashan hadda Somali Studies-ka aad u darsa bedeli doono jiilkaas imaanaya waa inay sii baaraan waa research gap macnaha waa research question adii lagu qashayo marka adaa la rabo inaad raasato kadibna aad aan sii baarato waxa kaloo kamida oo waxa la dhaho the partition of knowledge in Somali Studies midalan يعني aqoontii nagala aruuriyay ama xogtii nagala qaada meel kala duwan ay ka imaanaysaa taasoo ay aan markii aan ku bilaabay qofka rabo inuu mawduucan ka hadlo waa inuu qof background-igiisa ama luqad ahaan waa inuu Talyaaniga fahmi karaa Talyaaniga ku hadli karaa Ingiriis marka waxa waaye qoliyaha Soomaalida wax ka qortay ama anaka wax naga qortay meel kala duwan ay ka imaanayaan qaar waxa waaye gumeysiga Ingiriiska la socdeen qaar Talyaaniga la socdeen qaar Carabi ahaayeen qaarna waa dadkii Soomaalida ahaa ama aqoontii gudaha ama local knowledge waxay dhahayaan yaqaanin waayo oo gabayada iyo culimada suufiyada iyo dadkii wax sameeyay daraasada sameeyay marka aydan waa arki doonaa little bit that's why marka fiiris because marka fahantasay u kala daadsantaa ama u kala qaybsantahay daraasadaha laga sameeyo Soomaalida mar qaar waxa dareemaysaa in loo baahan yahay qof ka sameeyo book dhan ka qora oo dhammaan isku soo kooba
ii sheeg wixii Soomaalida laga qoray oo magaalada Rome tagi kara, London aadi kara, Portuguese ka booqan kara, Carabta booqan kara, akhrin kara, kadibna unified Soomaaliya wax la yiraahdo ii sheeg studies samayn kara, isku keeni kara, loo baahan yahay macnaha say fragmented u tahay u kala daadsan tahay. kadibna waxaan sameynaynaa doodo macnaha dhawaanahan socday oo la dhaho Cadaan Studies oo hadda gabar Safiici diid ay dhahayaan dib ugu laabanaysa macnaha dood weli taagan waaye, laakiin markaa fiiriso doodan waa dood waxay la xiriirtaa dood waqti dheer soo taagnayd مثلا qarnigii 18aad ama qarnigii 19aad dhamaadkeeda dood ka dhex socotay dadka Hindida ah culimadooda Ingiriiska ku nool dooda ay sameynayeen iyo kadibna ninkii la yiraahdo Edward Said Orientalism buugiisi ah dib ugu laabanaysa iyo nin la yiraahdo Mahmoud Mamdani oo Somali Studies ka aad ugu yaqaan waxaasay la xiriirta macnaha Safiya meeshaasay ka shidaal qaadanaysay oo ay la xiriir marka doodahaasay ayadana ahayd marka ayadana darbid waa isla fiirin doonaa kadibna waxaan u gali doonaa su'aalihii aan u gali marka daas waa mawduucyada aan cover garanto marka mid walba aan gudaha u galo tartiib anoo aad soo koobay taas overview good aan bixinay marka Somali Studies ka waxaa la dhihi karaa qoraaladii laga sameeyay qoraaladii anaka nagala qoray kuwa anaka iska qornay kuwii dad ajnabi ah naga qoreen si kala u dheh cilmi baaristii nagala sameeyay مثلا علم بارس la sameeyo waxay noqon karaan kuwa daabacan oo la daabacay sida hadda I'm Lewis oo kale Pastoral Democracy waa population waa la daabacay kuwa waxa jira oo aan la daabicin laakiin haddii madaxafyada gumeysiga macnaha maamulka gumeysiga qoraale iyo macluumaad u ururiyay laakiin qarsana jirta oo wasaaradaha arrimaha dibadda qaybta la yiraahdo archive departments ka hadii la tago ama colonial office waxay dhigi jireen Ingiriiska hadii la tago laga heli karo xog qarsan ay tahay xogta kaliya ma aha qaab qoraal kaliya kuma imaan karto mararka qaar waxay noqon karaan qolay waxa jira ay dhahan archaeologist yaal ah oo rabaan inay baaraan isirka ama taariikhda ummadda ayagoo u isticmaalayaan waxyaabaha materialka ama artifacts waxyaabaha ay dhahayaan sameynayaan midalan waagi hore kale yaa xasuusta xilliga soo gaar baashan ubada ay dhahan awyaashin waxay isticmaali jireen Soomaa baashan ubba ay dhahana lagu simi jiray laakiin hadda ubada wax kala bedelo Soomaa hadda tuba bedeshay marka waa ayadoo 200 oo sano kadib ayadoo dad ubadaas ay baarayaan kadibna raba inay ogaadaan sida aan u nooleynaysan u isqaadan jirnay wixii agabyada isticmaali jirnay ayadoo cilmi baaris laga sameeyo marka qoliyaas archaeologist yaasha ah laftigooda xog macluumaad ay qaadeen oo meel ay dhigayna jirta laakiin aan wali la record gareyn oo aan la qorin marka meelaha ay ka kala imaanayaan cilmi baaris la sameeynaayo ama dadka cilmi baaris sameeynaayo background-gooda meesha ay ka imaanayaan midalan dadka hadda aad ugu caansan oo aad looga hadlo waa anthropology qoliyaha aad Soomaalida aad u daneeyay anthropologist-yaashan wax kale ma daneynayaan kaliya waxay fiirinayaan ama guud ahaanba si guudba darsidda Soomaalida laba concept ay ku dul wareeganaysa wax la dhaho identity oo ku saabsan Soomaalidan maxay yihiin intee ka yimaadeen israan intee galaan iyo wax la xiriira qabaa'ilka iyo la xiriira isreynta ama isirnimada identity midda kalena waa history taariikhda Soomaalida intee galaan intee aadaan Arab miya muslimiin wax la yiraahdo African miya taas debate ka gala Soomaalida dadkan meesha ay ka yimaadeen marka labadaas meel ku dul wareeganaysa laakiin dadka badanaa aad u danay identity-ga midalan anthropologist yaasho kale oo I'm Lewis inay dhahan u weyn yahay identity-gaas ama topic-yada la xiriiro aad u danayna waxa kamid ah qolyahan la yiraahdo sociologist yaasha ama darsa habnololeedka bulshada daraaseeya dadka bartay darsidda Soomaalida wax badan oo ku biireen aqoon badan oo ku biireen hadda dadka oo Soomaalida ah oo cilmigan aad u bartay oo doodo ku biireen nin la yiraahdo Cabdi Kuuso waa taqaanin Cabdi Kuuso waa nin bartay cilmigan sociology-ga laakiin doodaha jiro qayb ka yahay oo markay timaado Soomaalidu ma dad isku dhaqan ah miya ma one nation miya mas waa nationalities ma dad hal ummad isku ah miya mas waa ummado kala duwan oo kala af ah oo kala dhaqan ah oo diin iyo dhul bas ay midees wax kala aan mideen nationalities مثلا debate kaasoo kala taagan Somali Studies ka dhex taagan iyo Cabdi Kuuso iyo nin yaraad Maxamed Xaaji Mukhtaar iyo isha dad badan ay ka hogaaminayaan wuxuu u yeelid iyo reer Eno family Eno Umar Eno iyo Maxamed Eno hogaaminayaan
qolyaha la yiraahdo linguistiga ama luuqadyahanada aaday Soomaalida wax badan oo ku biiriyeen aqoon badan oo ku biiriyeen waxaa kamid ah dadka hadda masalan linguistiyaasha kale waxaa kamid ah nin la yiraahdo Muuse Galaal Muuse Xaaji Galaal isna asaga waa nin linguistiga iyo nin yiraahdo Andrew Wisk labadooda way isla shaqeeyaan buug waxa jiro oo gadaalan ka arki doona hadda marka inta arkaysaan marka la leeyahay Andrew Wisk ana Xaaji Muuse Galaal buug ay qoreen waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa Somali Poetic Combat oo kaga hadlayaan masalan gabayada guba saddexda qolo isweydaarsanayeen ninkii ahaa Qamaan Bulxan oo jigjiga jooga iyo Ali Goronyo Ali Dhoox oo lascanood deegaanada jooga iyo ninkii la oranjay Salaan Carabi saddexdaas oday gabayada isweydaarsanay waxay ku sameynayaan way analyze gareynayaan buug ay qoreen 60 meelaas camal ay qoreen Andrew Wisk iyo Muuse Galaal marka linguistiyaasha dadka meeshaas ka imaanayaan wax badan inay ku biiriyeen historiograph waxa la yiraahdaa sawir taariikheedka mesela dadkan taariikhdooda in la sawiro oo ii sheeg la cilmiyeeyo iyo qoleen archaeologiga oo godadka qota oo kadibna waxyaabahan agabyada intay soo saaraan raba inay ogaadaan dadkan isirkooda iyo taariikhdooda meesha ay ka soo bilaabatay marka halkaas ay ka kala imaanayaan waa Somali Studies-ka iyo fiildiyadan ka hadlayo waxaan u maleynaa waa war badanahay waqtigan inaan idin la qaybsado rabo laakiin waxaan ka cabsanayaa inaan waqti dheer idin ka qaato marka taariikhda Somali Studies-ka qolo walba meel ay la aadaysaa masalan Am Lewis iyo odayaashan xilligii gumeysiga soo baxay dad waxay ku doodayaan in laga horeeyay oo ka horeeyaan qolyo Carab ahaa oo muslimiin ahaa oo dhulkan Soomaalida soo gaaray gaar ahaan xeebaha soo gaaray qoraal ka sameeyay oo dadka la yiraahdo sahmiyaasha oo qarnigii 16aad 17aad 14aad dhulkan imaanay sahminay qoraal ka sameynay laakiin caadiyan masalan dadka hadda Somali Studies aad u darsa dooda hadda taagan waxa waaye masalan si cilmiyan academic ama scientifically masalan wax u qortay oo masalan qaab ila moogta marka laga hadlayo academic research standard la raaca jiro oo hadda qof kasto wax qoray lama dhigi karo cilmi baaris waaye waa inay jiraan standard wax lagu fiirinayo halbeeg lagu fiirin waa inay jirtaa marka daas waa Am Lewis oo u yahay qoraalada uu sameeyay oo culimadan kale ka horeysay wax saameynaysa oo kaga saameyn badan because maxay wixiis waxaan wax standard ku socda oo cilmiyeysan ahayd oo sameynay marka dadkaas carabta jiray dib ugu laabanayso laakiin waxa u timaada teamkan uu imaaw oo hadda dhow oo gumeystayaasha xitaa inta u galin Soomaalida gudeeda dad waxa jira waa u jeedeen Uways Albarawi iyo Sheikh Aydruus macna dad waxay ahaayeen Soomaali ah laakiin xajka tagay wadamada carabta aaday diinta soo bartay imaaday kadib waxay bilaabeen inay question gareeyaan identity-ga Soomaalida isir ahaan meesha ay ka timid marka waxay bilaabeen inay sameeyaan inay abuuraan waagi hore ma ogtaa reer hebel iyo akasa la kala taagnaa kadib waxay rabeen inay sameeyaan common identity oo ah muslimnimo umma identity in la dhaho reer hebel ata laakiin waxa ka tirsan tahay ummad la dhaho muslim ah oo aan xuduud lahayn qaab saas camal identity saas camal abuureen oo muslimnimada ay aad u sameeyaan culimadan marka wax badan ay contribute gareen laakiin dadka aad loo buunbuunay waa Am Lewis oo ninkan anthropologist ah wax kale ma aan wixiis waxaan systematic research academic research wax systematic oo cilmi ah oo diyaarsan ahayn qaabku wax u qoray marka Am Lewis buugiisa ahaa pastoral democracy taariikhiyan meeshaas ay ka bilaabanaysaa qoraaladii ama daraasadii ay sameeyeen gumeystaha ay ka aruuriyeen iyo nin la yiraahdo Andrew Wisk iyo Sheikh Muuse Xaaji Galaal oo idin sheegay waan gudaha u gali doona mid walba doodooda waxa u timaada dadka scholarska ah I hope dadka qaar inaan ka tagay suuragal qaar inaan ka tagay laakiin waa intaan tusaale u soo qaaday aad u badiyeen dadka Soomaalida wax ka qoray oo labada shayba haday idin sheegay idlahay Somali Studies ku dul wareeganaysa oo taariikhda iyo identity-ga ama heebta iyo taariikhda ah aad macnaha u darsi wax badan ka qoray midalan Andrew Wisk oo ujeedin Ali Jimcaale Ahmed Professor Ali Jimcaale Ahmed dadka Baraarug Library ku xiran way fahmi karaan waa professorka maktabada ku xiran Cabdi Kuusoo idin sheegay sociologist ah Cabdi Ismaaciil Samatar dadku wuxuu kamid yahay dhawaanahan midalan 700 800 wixii ka dambeeyay aad macnaha
dood macnaha macquul ah oo aad u xoogan Somali Studies ka sameeyay asaga iyo walaalkiis Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Axmed Ismaaciil Samatar labadaba doodo macquul ah sameeyay jaamac Muuse jaamac asna waa ethnomathematics Martin Orwin waa linguist badan linguistayaasha ugu badan laakiin Maxamed Xaaji Mukhtaar waa taariikhyahan waa ninka bilaabay misalan dooda ah Soomaalidu inaysan dad hal meel ka wada imaaday oo isku dhaqan ah oo ii sheeg isku dhaqan isku isira aysan ahayn dad kala taariikh oo kala duwan sana wuxuu isticmaalaa kale qowmiyadan hadda ii sheeg raxanweynta oo kale iyo marka loo babadhigo misalan dadkan kale oo geeleyda habnoloodku isku midna si kale u dheh dad waxaa jira beeraley ah oo lifestyle-kooda ama noloshooda ay tahay beeraley habnoloodkooda dadna habsoo saarka nololeedka ay ku dhex jiraan hababka wax soo saarkooda wuxuu ku tiirsan waa geeley waa xoolo dhaqato waa raacato dadna waa raacato waay misalan waa geel iyo waxay ku jiraan dadna waa beeraley lifestyle waa lagu kala duwan yahay soo maaha marka asaga dhankaas mar wuxuu ka fiirinaa geographical mar wuxuu ka fiirinaa isirnimada iyo ranimada mar wuxuu ka fiirinaa lifestyle-ka lagula jiro nolosha marka wuxuu leeyahay waa kala duwannahay aad aan kala duwanaa dad manihin oo iska same ah midda kale xitaa dhaqanka markaa fiirisid dadka qaar reeraha qaar markaa fiirisid hadda abgaalkoo kale way shirbaan laakiin ogaadeenka ma shirbaan even xitaa markaa fiirisid dhanka dhaqanka iyo shiribka iyo markaa fiirisid baraamburka iyo heesaha xitaa Soomaalida waxaa fiirisa qabiil walba dhulka uu degan yahay in uu leeyahay wax la yiraahdo dhaqan hoose ama subculture u gaar ah inuu leeyahay marka hadda ii sheeg doodaas Maxamed Xaaji Mukhtaar dadku wuxuu ka mid yahay wax la yiraahdo heterogeneity Soomaali inay dad heterogeneous ah kala duwan oo kala dhaqan inay kala isiraan asaga iyo Cabdi Kuuso iyo dad badan la qaba doodaas argumentaas Sheekh Saciid Samatar waa taqaan Facebook ee maalin dhaxaas mar aan wax ku soo qorqoray asaga ka hadlaya jira qoraal yar aan ka sameynayay ninkan asagana waa linguist ama sociology waaye taariikhyahan waa la dhihi karaa African history oo bartay ama wax la yiraahdo taariikhda Afrika oo bartay marka book waxaa jira oo caan waa arki doona bookgiisa laakiin marka la fiiriyo ninkan doodaha markay timaado dadku culimada marka la doodayo oo laba dhinac loo kala baxayo wax la yiraahdo qolyo aaminsan in Soomaalidu noloshooda ay ku dul wareeganayso hab nololeedka qabaliga ama nolosha miyiga in Soomaalidu aysan wali ka dhamaan hadii magaalo la imaado xitaa wali in la yahay qabiil in la yahay reebaadiye la yahay iyo dad la yiraahdo isha la dhaho wax la transformationist ama wax la destructive paradigm la abuuray oo reer Samatar ay ku jiraan ninka marka dhanka I'm Lewis iyo teamkiisa aad loogu tiriyaa bookis marka akhrisan taasoo sii xoojina macnaha sababtan waxay tahay asaa geelay marka saada mire waa taqaan saada waa archaeologist waana dadka archaeologistaashu hadda soo baxa book waxaa jira mar dhow ay soo saartay oo ay qartay ay kaga hadlayso North Africa dadkan North Africa dadega Afrikaanka ay kaga hadlayso marka book cajiib ah Xuseen Tanzania waa taqaan Soomaaliya ninka asaasay waxa la International Somali Studies Association ninka sameeyay asana nin cajiib ah wax badan ku biiriyay Somali Studies-ka Safiici Diida hadda idin sheegay iyo Maxamed Xaaji Ingiriis waasana labadaba Safiici Maxamed Xaaji Ingiriis waxay lead gareynayaan young Somali scholars hadda soo baxay waxay u yihiin tusaale u yihiin raalaha marka Safiici iyo Maxamed Xaaji Ingiriis saasan u soo qaatay macnaheedu inay tusaale noo yihiin maadaama dad dhalinyaro oo hadda Somali Studies-ka macna ka sameynaya yihiin journalada u imaada marka journalada journal waxaa jira yiraahdo Bildaan almost 20 sano hadda jira Bildaan waxa editor-ka Axmed Ismaaciil Samatar asagana wuxuu ka mid yahay journalada caalamiga ah oo jaamacadda yar Macalester College oo hadda Axmed Ismaaciil Samatar oo maamulo ka yahay ayaa hoostaga ayakana gacanta ku haya asana editor-ka ah marka qofka u baahan inuu wax ku qoro Bildaankaas uu ku qori karaa darasada Soomaalida marka qoraalada Soomaalida laga sameeyaa lagu qoraa journalka daabacan mid waxa jira Horn of Africa and Independent Journal isna uu jira Journal of Somali Studies waa dadka Journal of Somali Studies dadka board memberka waxa kamid Professor Ali Jimcaale Axmed kamid Professor Ali Jimcaale kamid laakiin dadka asaasay Ali Jimcaale iyo reer Eno Maxamed Eno iyo Umar Eno iyo dadkaas iyo Cabdi Kuuso iyo Maxamed Eno iyo Cabdi Kuuso iyo Jimcaale iyo waxay u yihiin journalkan ayaka base ah
odayaasha geed fadhiga ayaka waa marka ayadan waxaa lagu daawaca weliba xataa journaladan I think 2014 la sameeyay marka maadaama uu cusub yahay bildhaanka wuxuu sameeyaa sanadkiiba hal edition oo sameeyaa laakiin kan waxaa la sanadkiiba 3 edition inuu sameeyaa suuragal marka hadda kan oo kale Journal of Somali Studies-ka qofkii wax qoran research sameynaa si quickly ugu daawici kara maxaa yeelay sanadkiiba 3 waxay sameynayaan edition Somali Studies peer review academic journal for the Somalis and Somali Society Journal kan asane waa journalka loogu talagalay dadka Britishka iyo Soomaalida ayadan waxaa arkay dhowr article oo Maxamed Xaaji Ingiriis iyo isha aynu ay ku qoreen arkay marka laakiin waxaa ka saameyn badan marka la fiiriyo hadda journalada labada journal oo hadda saameynta leh waa Bildaan iyo Journal of Somali Studies labadaba dad Soomaali oo culimada gacanta ku haya journal kale waxaa jira dad ajnabi ah ee board director yihiin oo yani dhalinyarada hadda soo bixiso wax qoraysa laga yaabo in ay ciriiriyaan ma aysan ay fursad inaysan siin ay soo baxaan meesha marka aan rabo inaan aad uga hadalno aad uga sheekeysano meesha wax la dhaho doodaha jira markay timaado Soomaalida taariikhdeeda iyo isirkeeda iyo markay timaado dhacdooyinka Soomaalida gudaheeda ka dhacay loo fasiraa hadda example oo kale dowladnimadii ayaa burburtay state collapse waxa la nagu dhacay see loo fasiraa marka maxaa sabab markay timaado qaab nooca loo macnayn karaa haddana 30 sano macnaha ummad dowladnimadeeda ay burbursan tahay in ka badan 30 sano haddana waa wax la yaab leh qaab nooca loo akhrin karaa marka qoliyo ii sheeg qoliyo la yiraahdo traditionalist thesis ama Lewisian paradigm oo nin la Amnus iyo teamkiisa ay ka mid yihiin ayagu yani waxay qabaan mushkiladda Soomaalida waa mid dib ugu laabanaysa dhaqanka qabiilka dhaqanka reer miyiga iyo qabiilka ayaa mushkiladda ama problemka Soomaalida haysata waa taas waaye waa dad reer miyi ah waagi 1000 sano Tom Jerry waa daawatiin Soomaalida waxa macnaha Tom Jerry camal isku ahaayeen xilligii miyiga markii la joogo reeraha way dagaali jireen reerihii miyiga isku soo dagaalaya magaalo iskugu imaado dawladda dhisteen dawladdeena sidii miyiga isku dagaaleen ay magaaladana dagaalka ula imaadeen markaas baasuuko iyo waxay qaateen wixii la isku dili jiray hoobiyaal insha Allah haday waramo wateen oo wax la yiraahdo isha falaar isku dili jireen hadda hoobiyaal iyo baasuuko isku rideen waana kala x iyo y iyo reere isku dagaalayeen markaas wuxuu qabaa dood macnaha oo samaha marka fiiris cajiib ah laakiin waxyaabaha oo marka la dhaliilayo waa arki doona qolyaha dhaliilaya cajiib waxa waaye nolosha Soomaalida 2000 oo sano ka hor qaabka uu noolaayeen oo primitive life oo qabaa'ilka ah ayay ilaa hadda ku noolay macnaha 2000 oo sano ka hor nolol ay ku noolaayeen ayaa wili daba socota no change wax isbedel ma jira midalan gumaysiga intuu soo imaanay ka hor pre-colonial wax la Somali political life ka qaabka ahaayeen ayaa wili nool waxyaabaha kale oo isbedeli kara hab nololeedka laakiin arinta identity-ga qabiilka isma bedelin wax change kuma dhicin marka shalay reere ahaayeen maanta inuu yihiin birina way noqon doonaan nothing else wax kale ma jiraan oo laga hadli karo haddii xabad isku ridaan reernimo isku dagaalayaan haddii ay wax kala dhacayaan reernimo isku dhacayaan haddii ay dawladnimo dhisanayaan reernimo u dhisanayaan macnaha nothing else wax kale ma jiri karo oo loo isticmaali karo oo kiyaal kale oo inta la xirto lagu fiirin karo mushkiladda Soomaaliya ma jiro the only hadda rabto inaad ka hadasho dhibaatada Soomaaliya Amnesty iyo teamkiisa qaba qolyahan waxay leeyihiin waa inaad fiiriso wax la yiraahdo ii sheeg qabiilka reernimada nin la Richard Porton oo waxa jira asana sahmiye aha asaga inta kaga horeeyay mesela asaga bilaabay oo daraaseynay Soomaalidii ku nooleed Seelac iyo Berbera dhinaca soo fiiray kadibna harar uga gudbay ninkan Richard Porton wax kale ma fiirnay kaliya hab nololeedka Soomaalida qaabka isku doortaan qaabka isku aroosaan si ciyaartu u ciyaaraan sidee ay iskaga dambeeyaan dagaalada qaabka u galaan marka qaabkaas uu sameeyay observation ka sameeyay marka qabiilka iyo sida Soomaalida ugu weynta uu ka hadlay Amnus wuxuu soo qabtay uu cilmiyay wuxuu ka dhigay nolosha Soomaalida marka asagu wuxuu leeyahay hadalka meeshan ku qoran dhan waa idin soo koobo ayadu Soomaaliya midalan the fundamental principle ku leeyahay mujidin organizing principle of their way of life is segmentary clanism Soomaalida hab nololeedkeeda waxa udub dhaxad u ah marka ay rabto inay wax sameeyso ama heykal wax kasto ay dhisanayso waxa base u ah ama qofka Soomaaliga marka uu fikirayo waxa base u ah qabiil marka ama magaalaha joogo ama wax la yiraahdo tuulaha joogo waa same waa isla aqliyadi waxba isma dhaamaan
marka qoliyo waxaa jira arrintan diiday laakiin intaana gelin kor waxaa rabaa inaa idin tuso buugaagta ay qoreen masalan hadda ninka Richard Burton buuggiisa waa kana waa raadin kartiin waa heli kartiin hadda nin la yiraahdo ii sheeg Boodhar Warsama wuxuu u tarjumay Soomaali u tarjumay saankii Richard Burton ugu magac daray waa heli kartiin waa raadin kartiin bal akhriya macnaha the way oo u fasiraya macnaha Soomaali wax la yiraahdo socio political life ka ama nolosha siyaasadeed qofka Soomaaliga isu u fakaraya qaabka uu soo wiraa bal arka ay markaa fiirisa pastoral democracy I'm Lewis uu isku dhow yahay marka waxa fahmaysaa labadaba inay ka imaanayaan wax la yiraahdo ii sheeg one paradigm ama hal ookiyaal inay ku fiiriyaan nolosha Soomaalida hal meel inay ka fiiriyaan kadibna inay ku sameeyeen masalan nin geeleeyo oo lascaano jooga aad daraasaynaysaa kadibna waxaa leedahay Soomaalidu dhansaana u egyihiin laakiin qofka Soomaaliga ee bardaala ku nool ama qofka Soomaaliga ee xudur jooga ama qofka deeg wax la yiraahdo jamaame beeraha ku falana ninkaas geeleega maxaa ka galasay isku macnaha shaqama isku live ma marka generalizationka waxba lagu qabsaday kamid tahay in wixii dhan ka dhigan generalization kale marka book kalena waa kana I'm Lewis bookgiisa pastoral democracy almost continue shantii ilaa iyo continue todobadii wuxuu sameeyay daraasad 2 sano ah cilmi baaris ah marka 2 sano wuxuu sameeyay Soomaalida waqooyi degan gaar ahaan waxaan u maleynaa dhinacan inay ahayd Sooli Sanaag iyo oo meelahan area-daas wuxuu ka sameeyay dadka joogo la noolaa la joogo xoolo la daaqay markay isguursanay geed hoostiisa loo fadhiisana uu daawanayo wuxuu ka sameeyay wax la dhaho ethnographic research bahalkan si u qabsanayo all those things waxa soo dhan dhaqan ay ka turjumaan marka ethnographic research kaas ku sameeyay book aad u fiican waay akhriya wax badan ku arki doontaan laakiin nolosha miyiga iyo psychology qofka Soomaaliga u fakarayo waxaas ayuu ka sheekanaa buugga labaad oo doodaas uu ku difaacayo dooda Soomaalidu inay weligeed qabiil soo eed haddana ay ahaanayso nolosha Soomaalida inay weligeed qabiil ku bees gareysaneed haddana ku bees gareysanta nolosha Soomaalida ee siyaasiga inay ku dhisantaa qabiil oo aan isbedelayn oo wax kale macnaha nothing else only qabiil wax kale oo raacsan ma jiro dooda saas dhaysa marka buuggan kale asna uu ku sii faahfaahiyay wuxuu ku sameeyay ku sii faahfaahiyay marka doodaas waxa aad u sii xoojiyay oo la qaba nin la yiraahdo David Letton iyo nin la yiraahdo Said Samatar Sheikh Said Samatar waxa qoran buug la dhaho Somalia Surge in Nation in Surge of State ana Soomaalidu waa dad oo qaran ah laakiin dawladda ka maqan xitaa Soomaalidu inay qaran tahay xitaa marqar dood waa idin sheegay Maxamed Xaaji Mukhtaar iyo Cabdi Kuuso iyo Dime hogaaminaa reer Eno iyo waxay qabaanbo dadku inay kala duwan yihiin qaranimaha noo dambeys we are different first dad kala duwan ah kadib aan ka wada hadalna sidii loo sameyn lahaa nation sidii loo abuuro macna waa dood aad u xoog badan marka ninkan asaga maadaama dadka geeleeda inta badan waxay aaminsan yihiin Soomaalidu ay qaran yihiin koos maxaa yeelay weyneysada qofka geeleeda oo kiyaalka u xiran ay ku fiirinaa the whole Soomaalida kale oo dhan bis taas ku fiirinaa marka taas waxay keenaysaa inuu sameeyo marka teamkana buuggaas ay qoreen Nation in Surge of State hal raadiyo waa la heli karaa qoliyo markuu waxa jiray 86 wixii ka dambeeyay dad waxa jira oo culimo ahaayeen oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo Mareykanka tagay wax bartay oo jaamacadda Mareykanka ku bartay oo ay ugu horeeyaan School of Thought kan waxa lead gareynaya kii hore I'm Lewis lead gareynaya moogtahay oo dhaqanka la xiriiray qabiilka kan waxa lead gareynaya nin yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar iyo walaalkiisu Axmed ah kadibna teamka kala gadaal ka imaanay marka dooddu waxay ka dhalanaysaa dhacdooyin dhacay moogtahay dhacdooyinka dhaca waxa kamid ahaa dagaalkii 77 dhacay waxa kamid ahaa dawladdii iyo waxa isdagaalayeen gobolada qaar qabaa'ilada qaar iyo askarta ciidanka isku dhacay qabaa'ilada qaar waxa lagu sameeyay ceelasha laga duugay marka waxyaaba dhacay macna state laftiisa waxa ku dhex jiray waa marka ay dawladnimada si burbureysay fragmented ay sameeyay si burbureysay marka waxaas waxa la rabaa in la sharxo oo laga hadlo why waxaan ay u dhacayaan why macnaha ay wax la yiraahdo dawladda Siyaad Barre madaxweyne Siyaad Barre oo qaabkan ugu fakaray way qoliye ka soo horjeedo jamhadii kacay ee u urursadeen waliba jamhad walbana ay hal reer u ahayd why in la sharxal ramugtay marka I'm Lewis waa iska taqaan markaas oo kiyalka qabiilku watay wuxuu leeyahay dadkan motorka dhaqaaji waa reernimadaas leebis Allah reernimadaas leebis yani ii sheeg hal aado wax kale ma sharxi karaan marka nin la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar dad waxa jiray ay u cuntimaysay oo Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid yahay Cabdi Ismaaciil Samatar dood wuxuu la imaaday la dhaho transformationist thesis ama deconstructive paradigm la dhihi karo
مثلا دودان wuxuu ku keenay wuxuu qoray buuggiisii PhD go ka sameynayay 86 inay heedan jeclahay wuxuu qoray buug qoray uu ka sameeyay jaamacadda thesis uu ku qoray buuggaas oo doodiisu ugu badan ku soo bandhigay buugga tus inta ugu jira waa kana horta buug The State and Rural Transformation in Northern Somalia buuggan markuu qorayo oo thesiska jaamacadda markuu sameeyay buuggan markuu qorayo doodii uu ku soo bandhigay saanay ahayd marka asagu wuxuu taagan yahay nolosha Soomaalida isbedel ku dhacay مثلا qofka Soomaaliga ee geeleedaha ee 200 oo sano ka hor noolaa gumeysiga ka hor noolaa ee qofka Soomaaliga ee maanta nool berbera ku nool isku mid maaha qofka macnaha waxa ku dhacay jinjigaas ugu badan wuxuu ka iimaanayay laba meel buu ka iimaanayay مثلا asaga dooda uu la iimaano waxa waay wax la dhaho commercialization of the livestock macnaha Soomaalidu ma ogtahay waxay la mode of production la habab wax soo saaray lahayn habka wax soo saarka qofka geeleeda ee Soomaaliga wuxuu ahaa xoolaha marka waxa dhacay waxa soo baxay magaaladii xilliga gumeys markuu yimid isbedelada dhac waxa kamid ah gumeysigu wuxuu keenay nidaam iyo dawladnimo keenay nidaamkaas iyo dawladnimada Soomaalidu wuxuu ku riday isbedel ku sameeyay station ku sameeyay number 2 mid taas oo mid koowaad mid labaad waxa waaye wuxuu abuuray gumeysigu wuxuu magaalooyinka ka sameeyay xeebaha maadaama uu sida Ingiriiska kale ujeedada ugu weyn oo waqooyi u kumeysan ay ahayd wax la yiraahdo in askarta ka deganeed cadan si uu xoolo u helo wuxuu abuuray koox ganacsatada dhaxda ka sameeyay oo la yiraahdo merchant class waxay sameeyeen qolii oo geeleeda ah oo wax soo saarayay ay xoolaha ka soo qaataan barbaray geeyaan dulaalo taqaasuma barbaray geeyaan Ingiriiska maraakiibta Ingiriiska cadana loo dhufay lacag ka helaan marka koox ganacsatada oo gudaha ku jirta soo baxday kooxdaas ganacsatada marka waxay noqdeen kooxdii ahaa economic class waagi hore qofka geeleeda ay meesha jooga asaga wixii haystay saaxiibiisa sameysanay asaga wax soo saarkiisa la asaga wuxuu ahaa qofka oo macnaha wax la yiraahdo economic power ka saxa hadda laakiin qofka geeleeda economic power ka laga qaatay ganacsato yar oo magaalooyin ka soo baxay xeebaha degan qaatay oo dulaale ah taajiray haystay again haddana dawladnimadeena waxay sameeysan koox group soo baxay la yiraahdo elite oo macnaha gumeysiga la shaqeeysta askar u ah wax la yiraahdo waxay sameeyaan xafiisyada uga shaqeeyaan cranial noqdeen turjumaani noqdeen those classes badana soo baxay qofka marka wuxuu sameeyay dadka geeleeda way soo baxeen geeloodu way ka soo tageen magaalada imaadeen dawladnimada la falgaleen ganacsato noqdeen qofka Soomaaliga markuu geelo joogo sida ay wax weyn ugu ahayd qabiilka nolosha ku noolaa iyo markuu magaalada yimid oo gumeysi la falgalay isbedel ku dhacay marka ninkan waxa lagu haystaa waxa la leeyahay sheekada ah naga daa qofka Soomaaliga shalay wuxuu ahaa wax la yiraahdo nolosha uu shalay ku noolaa ayuu maantana ku noolyahay qabiilkan asal ah ma aha waxyaabo badan marka waxa jira ii sheeg oo qofka drive gareynaya waxa kamid ah economic needs ka kamid ah midalan baahi dhaqaale jirto qofka dhaqaajina not kaliya ma aha qabiil inuu qofku wax u sameeyana ma marka faqriga dhacay musuqmaasuqa dawladnimada corruption ka sameeyay qoliye ganacsatada oo dhaqaale sameeyana qof marka wuxuu sameeyana identity aan qabiil ahayn ee qofka noloshiisa dhaqaajinaya waagu haddii qabiilada hadda waxyaabo kala dhaqaajinaya interest uu hadda yeelana ganacsi uu sameystay waa inuu yeeshaa economic waa inuu guri dhista waa inuu wax sameystaa waa inuu wax la yiraahdo madaxtinimo waa inuu helo oo dawladda raadiya all those things qofka drive gareynaya keenis inuu dagaal kiciyo inuu dad dilo inuu dad dhaco inuu wax dhaco laakiin qof marka kor marka laga fiiriyo waxa loo maleeynaa qofka inuu qabiil dartiis u sameeyanayo laakiin wax kale oo waxa jira qarsan marka Cabdi Ismaaciil Samatar iyo teamkii iyo argumentigaas la imaadeen waxayna leeyihiin dawladnimadii burburtay qabiil ma burburinay waxyaabo kala keenay because kooxihii groupiski sameysmay is dagaalay qolii baadiyaha oo rural wax la producers aha oo magaalada soo galay oo meesha ka baxay la baabi'ay basic production Soomaalida because geelidu waa laga qaaday qolii ganacsatada ah oo magaalada jooga oo gumeysigu u sameeyay iyo qolii gumeysiga intuu wax barasho u diray dawladnimada uga tagay oo gumeysigu wax soo baray waxa la yiraahdaa elite waxa la dhaho political elite ama political groups ka jiray shab is dhahay ayaka is dagaalay marka maadaama ayaka is dagaaleen qabiil ma mushkiladda qabiil ma mushkiladda su'aal bad waa group waa elite failure elite ka fashilmay daasa marka waxay timid in state oo burburo oo la isku dagaalo taasa keento laakiin ma aha leeyahay am Lewis ha aadin qabiilka problemka meel kale ka jirta qabiilka victim waa leeyahay ma fahantay mid kalena ninkan Cabdi Ismaaciil Samatar dooda cajiibku la imaado waxa kamid wuxuu leeyahay
war laba shay ha kala saarin waxaa jira waxa la dhahaa qabiil iyo qabyaalad clan and clanism wuxuu leeyahay clanka waxa la yiraahdaa marka laga clanshipka ama waxa la yiraahdaa qabiilka Soomaalidu baadiyaha waa sidiisii waa qoysas waa reere no dhib ma laha laakiin marka magaalada la imaaday dadkii oo magaalada soo galay ayaa dawladnimada dhex galay qabiilkii ay dawladnimadii ku dhex waxa la sheeg qabiilkii wax ku dhex isticmaaleen ayku magac qabiil isticmaalayeen waxay isticmaalayeen siyaasadda soo dhex galay macnaha when you put clan waxa la yiraahdaa politics into clanship halkaas waxay ka dhalanaysaa waxa la yiraahdaa clanism macnaha hadii qabiilka inta soo qabato siyaasadda soo dhex galiso oo siyaasadda soo dhex galisa qabyaaladee noqonay laakiin mushkiladda qabiilka ma ahane waxa waaye marka aad wixii isku karis ma dhijir isheeg isku dhex karis qabiilkii iyo siyaasadda isku dhex karis ooga dhigtay kadib marka waxa imaanaa mushkilada ay imaanaysa Cabdi Ismaaciil Samatar asaga wuxuu qabaa doodaha soo qabaa dadka qaba in Soomaalidu si cusub loo daracseeyo oo Cabdi Ismaaciil Samatar kaliya ma Cali Jimcaali teamkiisa qaba Cali Jimcaali buugaan uu edit gareeyay the invention of Somalia and I hope was the best book oo ugu fiican oo contemporary Somali studies ka laga qoray ana book hadda aan dhihi kara gadaal ka soo bax ma jiro laakiin 90kii kala wareega la galay moogta Soomaalidu waxa dhacay shifting ka dhacay book ugu fiicnaa ee la qoray oo nolol Soomaali sawiraya waliba dad culimo Soomaaliyeed ay qoreen ayuu buugan ahaa buugan gala waxa qornay leeyahay Lika Sanele asagu wuxuu I'm Louis ka comfortable dhihi karaa yani si dadban because I'm Louis ka comfort daraasay laakiin Lika Sanele asagu muxuu daraasay maya I'm Louis wuxuu daraasay waqooyi laakiin Lika Sanele wuxuu daraasay koonfur waqooyi ma aadin ka study wuxuu ka dhigtay koonfur maadaama dadka koonfurka ay beeraleeyihiin oo xoolo dhaqatada ay ku yartaa uu fiirinaa marka sida ay identity sida qabaa'ilka ay ku sameysmeen iyo sida jamaacaadka ay ku abuurmeen iyo dawladihii ajuuraan iyo galadiga dhismay qaabka lagu dhisay iyo culimada yani wax la yiraahdo duruq ama suufiya qaabka ay wala falgaleen ama ay qayb uga ciyaareen in la shape gareeyo identity ama qabiilka Soomaalida marka book fiican waaye dadka rabeen aad u daraaseeyaan gaar ahaan koonfurtan dadka rabeen inay wax ka qoraan boogan la yiraahdo sheeg the shaping of Somali society anfaca muhiim ah meesha ka kici karo Catherine Bestman asana wuxuu sameeyay maqaal waay kan article waay marka article kan Catherine Bestman ka doodii I'm Louis oo karbashay uu leeyahay yani adiga qabiila ku inda tiray mushkiladda qabiil ma problem kala jira mesela Soomaalidu waxyaabaha bedelay dhacdooyinka dhacay ee Soomaalidu bedel waxa kamid ah Soomaalidu gumeystaa u imaaday gumeysiga wax buu ka bedelay Soomaalidu waxay gashay dagaalkii qawaay xilligii gobonimoodoonki wax bay afkaarihii xilligaas gobonimoodoonku wax badan ay ka bedelay dagaalkii qawaay Cold War dhacay Soomaalidu wuxuu ku sameeyay uu bedelay isbedel weyn ku sameeyay dhacdooyin dhacay mugta ku sameeyay dawladnimada burburta laftigeeda impact badan ku yeelatay Soomaalida iyo diaspora dibadda laada markaas wuxuu taagan war isbedel badan dhacay qabiilkan u jeedid marar qaar macno ma laha waa laga awood badan yahay waxaas ka awood badan aan diiradda saar midalan dhaqaale burburkii dhacay 1980 the Cold War ama dagaalkii qawaay u dhaxeeyay hardankood wax badan aan soo gaaray faqri ama development Soomaalida ay tahay oo elite-ka laftigooda oo mid walba self interested ama dantiisa fiirinay laakiin aan fiirinayn ay sheegdan marka maqaalkan Catherine Bestman doodii oo ahayd reformationist thesis-ka ayuu ku biiriyay ama ay sheegay deconstructive paradigm-ka doodaas oo kaga darsaday sagaashan wixii ka dambeeyay gabadhan la yiraahdo Lidwin Coptunis dood oo macnaha waxay keentay oo gadaaldama doodo kale ay ka dhalanaan ayadu waxay rabtay inay sameyso two paradigm ay idin sheegay Soomaaliya Lewisian paradigm iyo deconstructive paradigm ayadan waxay rabtay inay sameyso wax la yiraahdo historical paradigm historicism waxa loo approach wixii in la taariikh every event in loo sameeyo taariikh in loo sameeyo marka ayadu waxay sameysay 1991 ilaa 1992 waxyaabay dhacay dhacdooyinka dhacay wuxuu ku sameynaysay ay labadii sano 1991 markii dawladda burburtay ilaa 1992 wuxuu ku sameysay study marka waxay sababta ugu weyn waxay leedahay war culimada oo dhan waxay isku mashquuleen state collapse-ga war dawladda burburtay laakiin waxay leedahay dawladda way burburtay laakiin dagaalkii lagu jiray dawladda marka hore waxa state wuxuu ahaa jamhad markuu state-ka dawladnimo marka meesha ka baxday dagaalku waxa waaye
dadka rayidka isdagaalay marka waxay noqdeen qabaa'ilada isdagaal state meeshu ka baxay dagaalkii waxaa ku dhacay leedahay shifting oo dhacay shal hadii dawladda xabad lagu ridaayay maanta dadkii dawladda xabadda ku ridaayay way soo jeesteen dadkii oo dawladnimada ama qabaa'ilkii dawladda la socday ayaa lagu jeestay kadibna waa la xasuuqay saas ayada leedahay macnaha cleansing lagu sameeyay macnaha dood cajiib ahayd laakiin ceebo badan ay leedahay meelo badan laga dhaleelay laakiin ayadu waxay rabtay inay iftiimi macnaha meeshaas ay rabtay inay ka dhex samaysato hadda I'm Lewis oo kale wuxuu abuuray moogta waddo abuuray oo xer badan oo sameeyay marka aydan waxay rabtay inay waddo cusub abuurato si loo raaco marka marka buugga wuxuu ka mid yahay buugaagta gadaal dambe ka soo baxay oo Somali Studies ka doodo badan ku biiray dadka aad u dhaleelay dadka ii sheeg aad u dhaleelay buuggan waxaa ka mid ah Maxamed Xaji Ingiriis oo kale waa aragteen laakiin Ingiriis kaliya ma aha dad badan reesama tarxitaa buuggan way dhaleelan sababtu weyn waxa leeyahay wax la yiraahdo one moment macnaha fiir waa 2 sano waa 1991 ka 1992 waa labadii sano ugu xumeed waay labadaas sano u dooratay marka this historical moment hal mar ay dhaceen laakiin maadaama ay dhaceen wax badan dhacay waxaas badan oo dhacay laftigaada maadaama la rabo qofka scholarka waa inuu problem ka xalliyaa marka ayadoo waxa lagu haystaa in mushkiladda ay sii ka dhigayso complicate wax badan dhacay xasuuqa dhada marka qof kasto akhrinayo wuxuu ku ridaysaa naxdin ku abuuraysaa iyo caqdad iyo dagaal ku abuuraysaa marka ayadoo waxyaabaas lagu eedeynayay iyo at some time wax la yiraahdo sheeg epistemological problem midalan dadka xogta ay ka keenayso dadka wareysad waxa kamid ah Cabdulla Gaas Razaari hore Cabdulla Gaas 1991 magaalada ma joogin 1992 magaalada ma joogin macnaha ma keen wax ayadoo lagu eedeynaa kamid ah dad badan oo wareysatay haddana ayada lafteeda xitaa ma ahayn markii daraasadda ay sameynayso wixii dhacayeen goobjoog uma ahayn macnaha ay mar walba waxay sameynaysay second hand dad ay wixii ka qaadaysay xogta ay ka qaadaysay marka dadkaas laftigooda waxay noqon karaan bias xog qaldanaysiin kara marka meelo badan lagu qabsaday laakiin at least in dagaalkii qabiileedkii dhacay in macno loo sameeyo oo la daraaseeyo oo waliba moogta marka dagaal la galo dadna waa dadkii wax dilaaya dadna waa dadkii la dilaaya ama perpetuatory victim marka haddaa victimka la sheekaysato muxuu kuu sheegaa ani maanta haddii aan Maryan aan mobile ku dhufto oo adiga cimbaara Maryan aan wareysto Maryan maxay ii sheegay xasan mudan waxay leedahay tuuga mobile ugu dhuftay dhibaato ii geysaan macnaha wax wanaaga ana xaggayga kaama sheegayso ana hadda ay timaad waxa leeyahay Maryan ayada iga qaldan maxay la computerkay iga jabisay saas aan ugu dhuftay qolo walba marka waxay sameeyaan narrative discourse sheekada ayada u gaarkay qolo walba ku sheegaysa marka halkaas waxa ka iimaanaya ii sheeg waxba lagu dhaliilay kamid yahay wareys waxa uu timaada qaybta ah partitionka qaybta partitionka uu imaa misan hadaa idin sheegay qaybtan aad ugu ma dheeraanay Soomaalidu waxa laga qoray dad Soomaali ah oo Soomaalida oo dad Soomaali ah oo Soomaalidu wax ka qoraa jira oo Soomaali wax ka dhaxay dad waxa jira Soomaali ah oo dadka Soomaalida taariikhdooda iyo isirkooda iyo saakooda iyo fikirkooda gabay ku cabiraa jira waa ayadan waa literature macna Somali literature Somali Studies kamid ah gabay ku cabiraa jira Soomaalidu xiriirka la lahayd wadamada shisheeye mesela dhaqaalaha ay si adduunku cabir ahaan mesela hadraawi oo kale gabadhiis qaar ma ka fiirayso markuu dirnayo mar qaar wuxuu ka hadlaa dagaalkii Vietnam uu ka hadlaa imagine waa gabayaa waa researcher ma laakiin the way depiction ugu sameeyay ama uu cabirayo dagaalka socday iyo sida Soomaalida ula socotay adduunka marka meelaha cilmiga laga doono marka waa aqoon dhan oo af Soomaali ku qoran mushkiladda jirtaan waa inay sheego daraasadda Soomaaliyeed ay u kala qaybsantaa qolay waxa jira I'm Lewis iyo teamkiisa af Ingiriisi wax ku qoran dhinacay taagan qolay Talyaani wax ku qoran marka cilada jirto waxa waay I'm Lewis af Soomaali kuma hadla ma yaqaan gabayadan ma fahmi kara af Talyaanina kuma hadla ma fahmi kara Jirole ninkii Jirole dhigi jiran oo Somali Studies qaybta Talyaaniga wax ka qoray ama hogaaminaya ninkaas qaabku wax u qoray ma fahmi karo Jirole af Soomaali ma yaqaan kii kale anahay af Ingiriisina ma fahmi karo marka waxa timid dhowr Soomaali waxa ka qoray dad oo kala luuqad ah oo mid walba mid kale aan fahmi karin Soomaha hadda anaka I'm Lewis akhrina laakiin cid soo akhris ma jira buugga Jirole oo qoray oo waxa trilogy 3 volume oo ka sameeyay Soomaali no because luuqada ma naqaan dad waxa jira German oo Soomaalidu wax ka qoray ma naqaan dad Arab wax ka qoray ma naqaan marka linguistic problemka ama caqabada luuqadeed waxay kugu tahay wax cilmi dhana ka maqan marka ninkan wuxuu leeyahay si macnaha mushkiladda loo xaliyo oo loo fahmo qof wuxuu u baahan yahay in dhammaan luuqadaas kala duwan cilmi lagu qoro qof waa inuu access u yeelan karaa markaas oo si deeply ah oo Soomaalidu u keeni kara marka
wuxuu ka sheekeynaa ninka hadda ninka the partition of knowledge in Somalia waa article waaye Lika Sanele laftigiisa qoray laakiin markuu sheekan wuxuu leeyahay anoo reer galbeed isaga waa nin I hope inuu Canadian yahay marka wuxuu leeyahay anigoo western ah meesha aan ka imaana waxa uu yiri aqoontii waxaan akhrinayo yiri reer galbeedka dhinaceeda aan ka imaana laakiin wuxuu yiri wax badan ay iga maqan Talyaani xaggooda wax badan ay iga maqan uu leeyahay man aqaan Soomaalida qaadiriyiinta suufiyada waxay ku qoran jireen af Carabi ku qoran jireen laakiin wuxuu yiri ana ma aqaan marka wuxuu leeyahay for the coming Somali scholar generation ka dhalinyarada ah hadii rabaa inay waxan xaliyaan oo xitaa dawladnimada Soomaaliya qarnimada hadii rabaa in la xaliyo marka hore waa in Soomaalidan hadday kala qaybsantaa wax kala xitaa intellectual heritage-keeda way kala qaybsantaa leeyahay soo gumaysigu u kala qaybiyay ayuu intellectual heritage-ka Soomaalidan u kala qaybsantaa ee qolol meel ugu xiranta cadaan studies aad u soo koobay cadaan studies-ka gabar loo dhaw Safiya Ciidiida bilowday Safiya waa gabar Canada joogta Soomaali ah laakiin PhD-ga hadda mar dhow ay dhameysay sanadkan dhameysay jaamacadda Harvard waxayna baratay waxa la African history marka Safiya ayadoo wax barbaaraysa journal la dhaho the Somaliland miya African Studies miya the Somaliland of African Studies journal saas camal ah oo macad ku yaala Hargeysa oo nabad iyo arrimahaas lagu daraasay xiriir la leh ay aragtay oo markaas la sameeyay gudaha fiirisay qolihii board editorada fiirisay hal qof oo Soomaali ka weys dhamaan wada cadaan waay dadku waxay rabaan inay Somaliland wax ka qoraan ay rabaan ardayda Somaliland ee jaamacadda Hargeysa joogtay rabaan inay fursad siiyaan haddana editorada iyo ma board editors oo dhan dad waxa ku jira cadaan ku jira marka way question garas waxay dhahdaan how come why macnaha ii sheeg what kind of paradigm adiga aniga ugu matali kartaa marka macnaha weynaysan noocee aanay ugu fiirin kartaa therefore aniga anaa kaaga aqoon badan anaa isfiirin kara haddii marka rabta inaad Soomaalida daraasiso ugu yaraan waxay ahayd haddii meesha cunsurinimo ka jirin ama yasma ama aysan ka jirin waa in marka la sameeyo ama gumays maskaxda haddii meesha ka jirin waxay ahayd in dhowr qof oo Soomaali ah maadaama Soomaalidu ay iskaga aqoon badan yihiin in lagu dareexay marka waxay bilowday dooday marka ninkii la yiraahdo nin waxa ka jira board editorada kamina la yiraahdo Mark Honka si xun ugu jawaab wuxuu yiri adika doodiina iska wada laakiin at the end of time saa u doodaysan qabyaaladiina iyo qabiilkeena dib ugu laabanaysa macnaha ma leeyahay aamini kara waa dhab iday kama scholarship again haddana waxyaaba lagu dhil waxa kamid ah wuxuu dhahay Soomaalidu dulqaad uma laha inay wax la yiraahdo sheeg muddo bil ah inay cilmi baaris u fadhiyaan muddo dhowr sano inay darsaan hal mowduuc dulqaadkaas ma laha one week inuu qofku meel fadhiyo computer garaaco wax akhri Soomaalidu dulqaad ma laha wuu fiirin oo iskaga tagaa marka waxay you guys macnaha wax dhab iday kama aha hatta agteena qiimo kama laha marka wuxuu Safiya wuxuu jawaabta laga bixiyo waxay dhalisay marka dood weyn oo la leeyahay reimagining Somali studies laakiin waa idin sheegay dad kaga horeeyay oo la leeyahay naag waxa jilay Spivak waxay qartay maqaal la dhaho can the subaltern waxa la yiraahdaa subaltern speak dadka looma ooyaanka ah ma hadli karaan Soomaaliyeed dad waxa jira looma ooyaanka ma hadli karaan wax ma sheegi karaan hadda example yar aan siinaa aniga marka qaar aad u naxaa marka la fiiriyo anaka dhaxdeena isku sameeyaan midalan wadada marka marto 100 qof marka wadada mareys 80 ama 70 kamid waxa laga yaabaa inay u badan yihiin wax la yiraahdo group ana qabiil ma dhahay group laakiin isku dabeecad ah macna isku class same isku nolol ah inay u badan yihiin dad macna xamaalata ah muruq maal ah ama gaariga aan raaci karin ama bajaaj aan raaci karin oo lugeenay inay u badan yihiin you know those things dadkaas marka dadkaas yaa wax ka qorama taqaana dad anaka nala mid ama dad cadaan ah dadkaas u hadla laakiin dadkaas nolosha ay ku noolyihiin ayaka wax ma qori karaan ma sheegi karaan ma hadli karaan dad kale u hadlaya oo noloshooda iyo problemka haystay economic inequality lagu hayo all those things u hadlaya marka ayadu waxay leedahay looma ooyaanka dadka Hindida ah ee looma ooyaanka ah ma hadli karaan oo wax ma sheegi karaan because dadka Hindida dad cadaan ah wax ka qoran marka ayadana Safiya waxay leedahay isla same argument Soomaalidu ayaka wax iska qoraan adinka waa hadleen anaka isku hadleen marka dooda saaseed wali way taagan tahay waa wax la decolonizing Somali studies in lagu sameeyo gumaysi maskaxeedka Somali studies in laga sameeyo dadka Soomaalida ay wax qoraan maqaaladana raba marka inaan idin kula taliyo inaad aad wax u aqri xoog saartaan midda koowaad waa meelay aan inta badan aan akhrinayo xogta aan ka keenayo maqaalada aan isleeyahay qofka haduu akhriyo
Somali Studies at least wuu fahmi karaa wax meesha ka socda. midda koowaad Somali Studies Tourist Alternative Epistemology by Cabdi Ismaaciil Samato wuxuu doodahaas oo ka hadlaa doodii Amy Lewis uu la galay iyo Amy Lewis waxa uu sheegay iyo asaga dooda uu wato ayuu uga hadlaa maqaalkan. waxaa kaloo jira maqaalka oo leeyahay waxa destruction of state and society in Somalia asna Cabdi Ismaaciil Samato qoray aqriya wax kale kama hadlo wuxuu ka hadlaa dawladnimadii burburtay maxaa keenay waan idin sheegayo kooxaha elite-ka dadka ay dhahan madaxweynta dadka leeyahay oo siyaasiyiinta ah ayaa wuxuu leeyahay Soomaalidu burburiyo leeyahay laakiin qabiil ma yaan qabiilku wax laga sheegin. It's all about those elite as selfish ah oo macnaha daneystayaal ah oo aan ka fakareen wax la yiraahdo waxa wadankan u fiican ama wanaagsan kursi la iibsanayo musuqmaasuq qof musuqmaasuq sameynaa qof kursi gadana qof lacag wax sameynaa qof hanti umada dhacay do you think that inuu wadanka jecel yahay dadkaas wadanka burburiyo leeyahay qabiil ma aha yaa la aadan qabiil gabadhan leeyahay Lidwin Copchins maqaalkan waa cajiib because Amy Lewis aad u dhaliilaysaa oo waxay aad u criticize gareynaysaa waxay leedahay fiiri marka maqaalka marka fiirisan Amy Lewis and Somali clanship waxay leedahay marka la fiiriyo koonfurta marka la fiiriyo identity qabiilka la mid ah oo sameysana jir way qabiilka u soo dhax qabatay mesela example waxa jira wax la yiraahdo identity la jameecad culimada suufiyadu waxay sameeyeen qabiil waa laga tagay jameecad wax la dhaho adiga jameecad ka tirsantahay adiga xirtee tahay hadda anigoo kale waxaan ka tirsanaa moolac la dhaho moolac baraarug tii badan oo saaxiibaday oo hadda qaar kamid inta fadhiyaan moolac kamid waa identity baraarug moolac baraarug waa identity waxa ku jira dad kala qabiil ah laakiin magacaas guudana mideeya wajir jameecada jira mesela magaalooyinka qaar hadda mesela magaalooyinka xeebta ah ama dadka magaalooyinka jiray dadka jooga waxay ahayd dad waxay ku aftirsanayeen deegaan reer Baraawe reer Xamarweyne reer Wardhigley reer Hebel marka wax la yiraahdo territorial identity ama residential identity-gaas waa identity jiray waay marka gabadhan waxay leedahay dadkii Soomaalidu wax ka qoray ama gumaysiga wuxuu sameeyay identity-ga qabiilku soo qabtay kaas uu xoojiyay bunbuni ku kale way baaba'ayaan marka meesha ka baxayaan because cidna ma bunbunees cidna ma daryeelays cidna ii sheeg daraasad kama samay cidna wax weyn kama dhigays maanta hadii la ilaa karo Soomaaliya mushkiladeedu oo dhan waxa waay because of reer Baraawnimada ama reer Wardhigle reer Hodanimada hodan waa degmo magaceeda waa qabiil ma aha dad badan reer hodan noqon kara soo ma marka wax weyn ay sameeyeen macna weyn ay sameeyeen marka akhriye maqaalkaas waa cajiib waay the partition of knowledge in Somalia baa lika sanela asagana akhriye because wuxuu idin ka dhisaa sida ay daraasada Soomaalida ay u kala qaybsan tahay ida shaqada noo taal oo ah inaan isku kabno oo aan hal cilmi baaris Soomaaliyeed aan sameeyno. Thank you very much. waa ku dheeraada raalaxad ustaadka aad u mahadsan yahay inta noogu soo xirmay kulankeena qiimaha leh wax yar biyacabaala jiro xaggaas marayna kadib barnaamijka halkaas oo noogu gabagaboobay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.